rasuulku sallallahu alayhi wasallam maalin baa qorraxdu madoobaad markaas rasuulka waxa la tusay waxyaabo yaab leh waxaan arkay inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam isagoo salaadii ku jiro dadka tukinaya oo imaam ah ayuu dib u soo kurtay ilaa uu ku soo dhawaaday safkii hore ee rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku beegnaa haddana rasuulku hore u soo baxay oo meeshiisii buu dib ugu soo noqday sallallahu alayhi wasallam saxaabadii markii salaadii la tukaday ayay rasuulka weydiiyeen sallallahu alayhi wasallam inta salaada la tukinaysay marna dib baad u soo guratay marna horaad u baxday sababtu maxay tahay rasuulka ilaahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaad arkaysay hore u socday jannadii baa la itusay muuqaalka qurux badan oo ka wanaagsan weligay ma arag midhaha meesha ku yaala iyo barwaaqada ilaahay dhigay subxaanahu wa ta'ala hal xabbo oo kamida ummadoo dhan adduunka ku filaan lahayd dil la keeni lahaa xabbo tufaax oo kamida midhaheeda oo kale midalan markaan dib u soo gurtay dhowr waxyaalood baa naarta layga tusay gudaheeda waxa kamida waxyaabihii uu nabigu xusay hadda waqti ma hayno ma wada sheegi karnee qodobkan u jeeda waxay tahay waxaan arkay nin tuug ahaa oo xujayda xadi jiray markay xajka yimaadaan ninkiiyo urku jirtiisii iyo calooshii inta ilaahay ka soo riday naarta gudaheedii ay saa u jiitamayso oo isaga iyo calooshiisii urku jirtii cadaabku ku socdaan arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu nabigu wuxuu ka sheekeeyay ninkaasi qaabka uu xatooyada u sameyn jiray wuxuu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam ninkaasi bakoorad buu qaadan jiray bakooradda meesha la qabsado qofku marka uu cuskanayo ma uu qaban jirin dabada dhulka la dhigo qabsan jiray dadka xujayda ee xajka xaramka u yimaada iyo mashaacirta xajka ayuu soo dhexmari jiray bakooraddii buu marka jiidayaa haddii ay wax u sudhmaan kiishashkii iyo dadku alaabtii ay wateen shandadahani ma jirin waagaas waxba alaabta lagu qaadan jiray maryo la toltolay ama hargoo la sameeyey haddii ay u gasho afka qalloocan ee bakooradda oo aan cidi dhaadin ama kii wax lahaa aanu arkin wiskala tegi jiro waa qaadan jiray haddii intay gasho bakooraddii afkeedii dhegteedii war waa sidee la yidhaahdo oo xaggaan waa sidee war ma arkeen raalli ahaadu leeyahay dee qof iska jiidanayo ka ilaalinaya loo arkayay moogta markaasaa dee qofkii tuug u arki maaye gantii bakooraddu ka saarayaa oo iska tegaya ilaahay